Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada Soomaaliya Funny Media. Magacaygu waa Cabdilcasiis Moxamed. Maantana waxaan idin hayaa barnaamijkeenii maxaad ka ogtahay 10 waddan ugu taajirsan caalamka. Lambar 10 Australia. Australia caasimadeedu waxaa loo yaqaanaa Canberra. Dadkeeda ku nool waxaa lagu qiyaasaa 24.6 milyan oo qof. Lacagtooda ay isticmaalaan waxaa loo yaqaanaa Australian dollar. GDP-ga waddanka waa 1.3 trilyan. GDP-ga qofkiiba sanadkii waxaa ku soo aada 51,850. 9 Singapore. Singapore caasimadeedu waxaa loo yaqaanaa Singapore. Dadkeeda ku nool waxaa lagu qiyaasaa 5.6 milyan oo qof. Lacagtooda ay isticmaalaan waxaa loo yaqaanaa Singapore dollar. GDP-ga waddanka waa 323.9 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. GDP-ga qofkiiba sanadkii waxaa ku soo aada 52,961 dollar. 8 Denmark. Denmark caasimada Denmark waxaa la dhahaa Copenhagen. Dadkeeda ku nool waxaa lagu qiyaasaa 5.6 milyan. Lacagtooda ay isticmaalaan waxaa la Danish krone. GDP-ga waddanka waa 324.9 bilyan oo dollarka Mareykanka. GDP-ga qofkiiba sanadkii waxaa ku soo aada lacag dhan 53,744 dollar. 7 United States. caasimadeedu waa Washington DC. Dadkeeda ku nool waxaa lagu qiyaasaa 327.2 milyan oo qof. Lacagtoodana ay isticmaalaan waa US dollar. GDP-ga waddanka waa 19.4 trilyan. GDP-ga qofkiiba sanadkii waxaa ku soo aada lacag dhan 57,436. Number 6 Iceland. Iceland caasimadeedu waxaa la dhahaa Reykjavik. Dadkeeda ku nool waxaa lagu qiyaasaa 364,260. Lacagtooda ay isticmaalaan waxaa la dhahaa Icelandic krona. GDP-ga waddanka waa 23.9 bilyan. GDP-ga qofkiiba sanadkii waxaa ku soo aada lacag dhan 59,629. Qatar caasimadeedu waa Doha. Dadkeeda ku nool waxaa lagu qiyaasaa 2.6 milyan. Lacagtooda ay isticmaalaan waxaa loo yaqaanaa Qatari riyaal. GDP-ga waddanka waa 167.6 bilyan. GDP-ga qofkiiba sanadkii ku soo aada waa 60,787 dollar. 4 Ireland. Ireland caasimadeedu ay tahay Dublin. Lacagtooda ay isticmaalaan waxaa loo yaqaanaa euro. Dadkeeduna lagu qiyaaso 4.8 milyan. GDP-ga qofkiiba sanadkii ku soo aada waa 62,562 dollar. Waana waddanka afraad ugu qanisan caalamka. 3 Norway. Norway caasimadeedu waxaa loo yaqaanaa Oslo. GDP-ga qofkiiba sanadkii ku soo aada waa 70,392. waana waddanka saddexaad ugu qanisan caalamka. Dadkeeda ku nool waxaa lagu qiyaasaa 5.3 milyan oo qof. Labo Switzerland. Switzerland caasimadeedu waxaa loo yaqaanaa Bern. Switzerland ma laha caasimad rasmi ah, laakiin Bern waa meesha ay ku shaqeyso dowladda federaalka. Dadkeeda waxaa lagu qiyaasaa 8.5 milyan oo qof. Lacagteeda ay isticmaalaan waxaa loo yaqaanaa Swiss franc. GDP-ga qofkiiba sanadkii ku soo aada waa 79,242 dollar. Number 1 Luxembourg. Luxembourg caasimadeedu waxaa loo yaqaanaa Luxembourg. Dadkeeda ku nool waxaa lagu qiyaasaa 602,000 oo qof. GDP-ga qofkiiba sanadkii soo gasha waa 103,199. Luxembourg waa waddanka koowaad ugu taajirsan caalamka.